لعله خير nin boqor ah oo iska muslim caadi ah ayaa wuxuu lahaa wasiir xakiim ah la taliye u ah oo mu'min ah hadalladaas kala ogaada ninna waa muslim ninna waa mu'min ma farqi bay kala leeyihiin ha farqi bay kala leeyihiin muslimku waa daa'irada weyn weeyaan laakiin mu'minka muslimka waxaa laga doortay gaalada laga soo dhex saaray gaalada waxaa laga soo doortay dadkan muslimiinta ah shahaadadii markay qireen soo maaha laakiin mu'miniinta gaalada lagama keenin mu'miniinta waxaa laga dhex doortay muslimiinta intoodii ugu wanaagsanayd ee dadaalay uurkooda iimaanka buuxiyaa la yidhaahdaa mu'min waana daa'iro yar oo ku dhex jirta wareeg yar oo ku dhex jirta wareegga muslimiinta mii fahamteen mu'miniinta waa kuwa aad bay u yaryihiin waxa la ammaanaya muslimiin maaha marka ogaada waxa la ammaanayo ee rasuulku la yaabaya salawaatu llahi wasalaamu caleyh waa daa'irada yar intuu ku jirta mu'miniinta ilaahay idaylkeen hayna wada geliye kuwa way kuwa ammaanayo kuwaasuu iska leeyahay kow ninka mu'minkaa marka wasiirku wuxuu ahaa mu'min mu'minkana waa sabuurun cinda albalaa shakuurun cinda alrakhaa barwaaqadana wuu ku shukriyaa balaayadana wuu ku sabraa waa sifo uu leeyahay ninkii wasiirka ahaa iyo boqorkii markaa kana khayr wada weeyaan kana khayrka badan ma yaqaana mar walboo dhib uu gaaro ninka boqorka ah wasiirka ilaa waa ku dhegan yahay wuu la socdaa kama hare wuxuu yidhaahdaa lacalahu khayr waxbaa ka dhintay lacalahu khayr xoolaa ka dhumi lacalahu khayr waxbaa si noqday lacalahu khayr lacalahu khayr wuu xanuunsaday boqorka lacalahu khayr ninkan lacalahu khayrta marka dhagiisay ka badbadatay war waa xanuunsaday madaxay xanuunaya lacalahu khayr khayr bay ku tahay leedahay intuu khayr ka imanaya waa maxay khayrka khaatiyan buu ka istaagay maalinkii ugu dambeeyey ogaad baa la aaday waa la israacay sida loo ordaayey boqorka ninkuusana uu ahaa wuu dhacayaa marka intuu turaanturoodu dhacaya god buu ku dhacayaa intuu sii dilaandiloobayey gadgadoomayey farti baa jabaysa marka dhiig baa daadanaya oo dharkii halaynaya aad buu u xanuunsaday ninkiioo dee boorkii iyo dhiiggii iyo wixii kuwanna waa ka daba ordayaan iyagoo is ilaalinaya mogta godka saanay ugu dhicin bay godkii qarkiisa istaagayaan ninkaanoo dee gudaha ku jira markaasuu eegayaa yaa hadlaya marka wasiirkii baa hadlaya waa inuu dejiyaa markaasuu leeyahay lacalahu khayr khayr god baan ku jira lacalahu khayr khayr kadib baa farti baa marka xanuunkii dareema fartii dhiigga daadanayo tusaaya soo ma aragtid waan arkay lacalahu khayr yani arrin adag weeyaan arrin adag weeyaan markaasaa dhakhtar la keenaa waa la soo saara waxaa ugu daran markii la yidhi farta waa la goynayaa khalaas way fartaadan waa u dhammaatay waa la goynayaa markaasuu yidhi waa inuu la tashadaa la taliyihiisii la taliyuhu fiirinaya uu leeyahy ma maqlaysaa lacalahu khayr ogolow lacalahu khayr khalaas wuu isxiray marka wuu isxiray weelku waa buuxsamay markaan markaasuu leeyahay aawey waardiyaalkii inkaar qabahan jagada ka qaad xid xabiska gee muxuu ku mutaysta ilahay baan ku dhaariyey eeg waa khayr markii afkiisu hadal wanaagsan baray hadalka wanaagsana jannada lagu galaa soo ma ogidin nin baa u imanaya salawaatu llahi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay shay jannada igeeyey ii sheeg wuxuu leeyahay hagaaji hadalkaaga hagaaji kalimatu طayiba sadaqa ilahayna muxuu kitaabkiisa ku leeyahay waquluu linnaasi xusnan dadka wax wanaagsan u dhan maxaa qofka markuu uurkiisa dahab uu yahay uu wanaagsan yahay wax wanaagsan maahane wax kale kama soo baxo dadka caytamaya wax xamanaya afkooda laga amaan heli waayo waxaad ogaataan uurkooda xun uurka hala sifeeyo kadib ninkii waa la xirayaa jeebadii marka lagu dhufto dee waa nin ilaahay khayr siiyey waxaan ma arka laab ciriiriya ma sito laabtiisu waa ballaaran tahay wax walboo loo geysto haddii la jarjaro ya lacalahu khayr ninkan waxba umuuna geysa markaasaa markuu xiray wuu yaabay wuxuu ku mutaystay ma yaqaan waa hadalladiisii wanaagsanaa
la talinimadiisii wanaagsanaa markaasuu tusayaa lacalahu khayr lacalahu khayr ordu yar khayrna ku noqotay waxay doontay wuu iska reebay gacantii baa la gooyey maalmo kadib asaabiic kadib bil kadib iska dhe way raysatay kadib buu dee nina caadadii kama tagee waardiyaal buu kaxaystay ugaadhii baa galabba la aaday iyagoo ugaadhii raadinayo la daba ordaya xadkii bay ka baxaayaan waxaa ka hor imanaya qolo mooryaan ah qurbaan u raadinaya ilaahooda yacni sanam bay caabudaan sanamka sanadkiiba qof baa loo gowracaa dhiiggiisaa lagu shubaa waa qurbaan si dhulku nabad u helo si barwaaqo u dhacdo beeruhu u soo baxaan gabdhuhu u dhalaan yah ammaan loo helo nin baa la gowracayaa markaasaa sanamkii madax loo saaraya dhiiggiisa ilaahay bay marka waxay u raadinayeen qurbaan odagaanoo dee cayilanoo qurux badan yah ayaa xoogo waa la dagaalamay dee waardiyaalkii way carareen markay carareen isagii baa la qabtay waa la xerxeray dhawarkii baa la saartay ilaahay baa la horgeeyey sanamkii waa la seexiyey marka intaan la gowrac mindiyihiiba agtiisii lagu afaynayaa ogow geesaha lagala marayaa niman dee yaa ilaahay og yahay markaas jaa ninkii horta waa damay waad garanaysaan wuu damay yani korontadii ka tagtay soo ma ogidin dadka marka la tooganayo ma aragteen nin dhan oo la xerxeray oo askartii diyaar garow ubka garabka saar kow la leeyahay oo iska taagan aan hadlaynin taa korontadii ka tagtay out of service waa dhintay ninkaas noloshuuba ku dhintayba kaa waxaa la hubaa haddii la sara xataa dhiig kama imaanayo soo ma ogidin jaa wax waa qofka intuu ka nool yahay uurka weeyaan haddii soo weligaa waxaad ma naxday ama ma baqday inta lagaa hor yimid dareemihii o dhan ma kaa tegay ma istaagnaan weyday jilbi jilba ma u dhacday qofku wuxuu ka nool yahay waa uurka laakiin ninkan waa un agtiisa mindiyaha lagu afaysanaa laakiin wuu quustay nolol in la gowracaa la rabaa marka dhakhtara laakiin ugu dambaynta xaalka jeegaraynaya qiimaynaayo waa la fiiriy lagu marka ilaah waxaa la rabaa dhammaystiran waxaan leeyahay qof dhammaystiran insaan dhammaystiran ayaa ilaahan loo waa ilaah agtooda qaalib uu ku yahay qofku waa inuu dhammaystiran yahay lugihii baa laga soo bilaabay sida loo fiirinaya meel walba gacantiyaa la gaaray mise faraa maqan stop georgia ninkan ma dhammaystirna waa naaqis dhakhtarkana go-aanka ugu dambeeya saas kale laakiin hadalladaa qiimiga badan ee badbaadada ah waxay ku dhacayaan dhegaha ninkan nolosha ku dhintay soo maha markiiba ninkii dhegataagu bilaaba marka indhihii miriq ka siinaa wuxuu ogaanayaa tantii badbaadin lahayd inuu yahay xarkihii ha laga furfuro ninka waa la soo dirayaa ilaahay baan ku dhaariyey waxa ugu horeeyo qalbigiisa ku dhacaya ninkaa waa maxay muxuu soo xusuusanayaa xaaskiisii ilmihiisii iyo xukuumaddiisii milkigiisii boqortooyadiisii wallahi inaanu qalbigiisa ku soo dhacaynin siduu u ordaaya sida nin waalan xabiskii buu aadayaa marka hor ii fura ninka keen furaha ka fur soo saar ninku waa yaaban yahay maxaa dhacay ninkii hala xero lahaa khaatiyanka ayaa maanta isku duubaya ooynaaya war maxaa dhacay say wax u jiraan boqorow wuxuu yeleeya niyo wallaahi waa i badbaadisay wuxuu yidhi lacalahu khayr hadalkaagii yaa wallaahi isagaan ku badbaaday isagaan ku badbaaday maanan ogeen fartii aad idhahaysay lacalahu khayr maanta iyadaasaan kusoo badbaaday laakiin mid aan ku weydiiyo adiga reerkaagii baan kaa kaxeeyey oo aan kaa xarimay ilmahaagii ayaan kaa fogeeyey xorriyadaadii baan kaa qaaday shaqadaadii baan kaa fogeeyey waa maxay maalintaad xirnayd aad gelaysay waxaaday tiri lacalahu khayr waa maxay khayrka intaa aad ka helaysa khayrka ku jiraa waa maxay wuxuu yidhi waad ogsoon tahay boqorow aniga geesi baan ahay naftii horena waa ahay daacadna waa kuu ahay sida fulayaalkan oo kale kaama carareen marka laysgalo naftan ku duldhigi lahaa waa nala qaban lahaa anigii adiga marka iyaga cararaan adiga fartaadaad ku badbaaday laakiin aniga waa dhammaystirnahay sow ma ogid anaha booskii la yidhaha kanaa dhammaystirane kan ha la gowraca marka
intuu dhunkada ayuu leeyahay waad i badbaadisay boqorow markaad i reebtay xabiskaasa igu badbaadisay marka badbaadadaasaa khayr ah waxaan arkayey badbaadadaasaa ilaahay i tusay ma fahmaysaan mu'minka meel fogu wax ka arkaa ma ila dareenteen waa indheer garad haddaad maqashaan cuqaasha indheer garadka ah waa mu'miniin ma aha odayaal dhaqameedkan lagu magacaabayo ma aha wallahi inaanay ahayn kuwan dantooday garan la'yihiin soo ma ogidin dantoodii aakhira maaha toodii adduunya xataa wallahi waa garan la'yihiin laakiin ninka mu'minka waa indheer garad indheer garad waxa soo socda iyo mustaqbalka basiiray leeyihiin maxaa keenaya uurkooda iimaanka buuxa may garateen dhalinyaro marka lacalahu khayr taas ayay ahayd ninka mu'minka markuu xaaladaa ku nool yahay hadalkiisa uu waxbaro alxamdu lilah lacalahu khayr weligii farxad buu ku noolaan xabis buu ku jiraa laakiin nicmo waa ka khayr badan yahay kuwa magaalada soo moogid ta kale